Falsafadaha jacaylka iyo nolosha waa kuwo dareen culus marka laba qalbi si gaar ah wax isugu sheegayaan. Waxaan jeclaystay halkan inaan idinkugu soo gudbiyo sheeko dareenkayga wax badan ka beddeshay, aadna u xiiso badan. Sheekadan ayaana ah fariimo dareenka wax ka beddelay oo isdhaafsadeen wiil u dhashay dalka Yemen iyo gabar wariye ah oo shaashadaha ka daawaday. Wiil xariif oo u dhashay dalka Yemen laguna magacaabo Cumar Al Camuudi ayaa wuxuu fariin shukaansi u diray gabadha lagu magacaabo Christian Bayseri, taasoo ka shaqeysa telefishinka Al Xades. Ereyada quruxda badnaa ee Cumar u qoray awgeed waxay noqdeen kuwo lagu faafiyo Facebook, Twitter-ka jeer oo warkii gaaray gabadhii waxayna la soo xiriirtay Cumar iyadoo uga mahadcelinaysa dareenka quruxda badan uu muujiyay. Waxaana Cumar ugu horreyn u qoray gabadhan fariin xiiso badan, dareenkeedana gabadhaasi rogtay. Fariinta Cumar qoray ayaana u dhigmaysay sida tan: ma ogtahay in wiilka Yemeniga ah uu neceb yahay siyaasadda iyo hadalhaynteeda, saas oo tahay isagoo ama kaagsan uu adiga ku daawanayo isagoo dhoola caddeynaya. Adiguna markaad waramaysid hoogga iyo halaagga dalkiisa ka socda, ma ogtahay siduu wiilkaas u jeclaan lahaa inuu joogo booska kuwa cigaalka amba suudadka qaba ee hawada aad ku wareysanaysid, si uu kuugu sheego kaliya qurux badnidaada. Waxaan kuu sheegi lahaa inaad leedahay sixir, kaas oo ah wararka xun ka dhigaya kuwo wanaagsan oo la jecel yahay. Hagardaamooyinka aad ka sheekeynaysid waxay ka hadli lahaayeen dhagoolka, indhahaaga baana kaaga warrami doona. Waxay sidaasi nabad iyo dagaal, nolol iyo geeri, gacalo Christian, timahaaga hurdiga ah maankayga xadayaan, balse madowga baad aad uga soo bixi lahayd. Barta kaaga taal dhudhunkaaga bidix ayaa u daliila taas. Hana ka shakiyin in midabka madow lagu xadgudbay marka loo isticmaalay tacsida uma baahnid markhaati iyo waryaalkaaga markaca runnimada waxa aad sheegaysid. War degdega noogu sheeg in Qudus la xoreeyay, Suudaanna ay nabad noqotay, Suuriyana dib loo camiray, dagaalkii Yemenna uu istaagay. Noo sheeg in madaxweyne Trump uu xilka iska casilay, dowladaha Carabtana ay xiriirka u jareen Iiraan iyo Mareykanka. Oo noo sheeg odayga Cali Cabdalla Saalax ah in uu weli nool yahay. Waxyaabahan waan rumaysanayaa, wararkaaga oo dhan waan rumaysanayaa, balaayo kastoo aad sheegtid baraare bayna iigu muuqanayaan. Fariintaas ayaana Cumar u diray gabadha Christian lagu magacaabo ee wariyaha. Haddaba gabadhan ayaana markii fariinta gaartay waxay u soo dirtay fariin kale oo xiiso badan oo dad badan dareenkooda soo jiidatay. Waxayna ku bilowday fariinteeda: marxaba Cumarow, waa Christian. Waan aqriyay fariintaadii, mar baan dhoola caddeeyay, 2 goorna waan murugooday. Waxaan ku qoslay dareenka haweeneed ee shukaansiga iyo ammaantu ka farxiso. Haba qarsadaan 2 jeer aan murugoodana, mar waa adigaan ku walwalay, marna aniga isku walwalay. Waa hoogii quruxda, waa kan ragga jacaylka ku dila, dumarkana hinaasaha iyo naceebka ku abuura, inanta qurxoonna ku dila cidlada iyo murugada. Dadkoo dhan baa iyada u soo loolama, balse cidi ma soo gaarto oo loolankaas unbay soo dhaafi waayaan. Kii soo gaarana murugteeda ayuu isna la murur dilaacaa. Waxa uu jecel yahay haweeney ragga oo dhan wada jecel yihiin, jeer uu rumaysto inaysan isagu si gaar ah ahayn. Cumarow, hablaha qurxoon dadka iyaga ayaa ugu farxad yar, masaakiinta jeclaata ayay qalbiyada ka jebiyaan, iyagana maalqabeennada kooda jebiya. Sida sharaxaad bayna guryaha ku quruxsadaan. Iga raalli ah Cumarow, gabdhaha iyaga wariyaasha ah qurux sida u badan ma lihin. Waxaad arkaysid waa gacan ku samays. Waxaanu ku murugoonayaa amba la murugoonayaa baalasha indhaha ee beenta ah markay naga dhacaan murugo badan dhimashada dadka aan warkooda tabinayno. Baqdintaan kuu baqayo inaan qalad farsamo naga dhaco ayaa ka badan baqdinta duqeymaha. Waxaynu nahay bombalayaal isku dareen ah. Ku sheeg wararka muruga leh
murugada leh iyo kuwa farxadda leh, meherada cawees oo la furay iyo meydadka 10 carruur ah nooma kala duwana. Iga raali noqo Cumarow, kuma xog wareysanin, saa waxba kaama ogi. Kolley xaalkaagu waa iska adag yahay, sida dalkaagu yahayba. Kooxo tuuga ah baa masaakiinta iska dhiga, waxay ku nool yihiin guryo waaweyn, waxay iska dhigayaan halgamayaal. Hadalladooda way qalafsan yihiin, ujeedooyinkooduna waa isdabamarsan yihiin, xogtooduna way isburinaysaa. Afkiina ayay ku hadlaan si ay lacag badan u helaan. Si aad u dhibsataan ka daran baynu u dhibsannaa, nacalad tiina ka badan waan ku kiilnaa. Dadkiina burburay iyo dalkiina ha idiin barakoobo. Iyo abwaanada jacayl ka buuxa, jiridan idin falxumaynaysana waan idinkaga tacsinaynayaa. Noo soo celi hadda. Waan ogahay in aan raggayaga iyo xaasidan quruxdeenna, balse ma ogidin in annaguna idin xaasidno hablaheenna. Sida aad dareenkiina jacaylka ugu bandhigtaan ereyada qalbiga xada ee aad dhahdaan, balse hablihiina ma dareemaan sidaan annagu u dareenno. Ha ka ahaato is-adkeen amba doqonnimo. Inanta daraskiina ah waxay awooddaa inay daaqadda ka qoorato si ay fariimahaada iyo qalbigaaga u xaddo, amba gabadhaad isku jaamacadda amba shaqada tiin ay ka soo aga dhowaato si ay u hesho jacaylkaaga iyo ereyadaada macaanta badan. Saaxiibta waxay awooddaa inay jidka kaaga hor timaado si ay kugu weydiiso halka dukaan hadiyadaha lagu iibiyo ku yaal. Si aad u sii raacdid, waxa aan ka xumahay ubaxyada ay ku dhimanayaan qalbiyadiina iyagoo idin hor jooga. Waxaan ka xumaha ereyada ku duqoobaya carabkiina aamuskooda awgi. Waxaan ka xumahay qalbiyadiina jacaylku ka buuxo iyo gabdhihiina in la guursado ka doorbidaya in la jeclaado. Cumarow, hal sadar oo fariintaad ii soo dirtay ka mid a baa iga farxad badan inaan dalxiis ku tago magaalada San Francisco ama sawir aan kula galo Trump beerta ku taalla aqalka cad. Erey jacayl ah baa iga filan inaan isku tuurtuuro jidadka Moscow. Warqad jacayl oo dhaba baana iiga qaalisan inaan ku nasto beerta Al-Andalus kuna dalxiiso qaaradaha dunida sidaan yeeli jiray, balse waxaan ku dhex dalxiisayaa ereyada ku yili fariintaada. Inaan tifatiro fariintaada ayaan iiga muhiimsan inaan dalalkaasi ku damaashaado kuna socdo. Ugu dambeyn saaxiibkayow, ha igala baqiilin fariin kale oo aad ii soo dirtid. Ma ahan fariin oo keliya, siday kula tahayba waxay ii tahay tigidh aan ku maro magaalooyinka iyo xeebaha qalbiyigaygu jecel yihiin, kuwaasoon cidna idinkaga ahayn. Waadna ku mahadsantahay fariintaada quruxda badan aad ii soo dirtay. Dareenkayga ayayna wax badan ka beddeshay, ayay ku soo koobtay qoraalkeeda gabadhan. Sheekadan ayaana noqotay mid baraha bulshada si weyn u qabsatay. Waxaana turjumay Cabdulaahi Bowtaan, waxaana idinla socodsiinayay wariyaha arrimaha bulshada Gacal Ayman.